qisadani ayaa ku saabsan laba qabiil oo la kala yiraahdo Hutu iyo Tutsi. Sanadkii 1994 kaliya 100 ayaamood gudahood waxaa dalka Rwanda lagu xasuuqay dad tiradoodu gaarayso 800,000 oo qof. dadkaasi la gumaaday ayaa ka soo jeeday qabiilka laga tirada badan yahay ee Tutsiga, halka kuwa gumaadayna ay ka soo jeedeen qabiilka Hutuga. qabiilka Hutuga oo u badnaa beeraley ayaa 85% ahaa kuwa degan dalkaasi, halka dhigooda Tutsiguna ay ahaayeen lo'ley dhaqaale ahaanna ay ka ladnaayeen Hutuga. qabiilka laga tirada badan yahay ee Tutsiga ayaa muddo dheer dalkaasi soo xukumayay. sanadku markuu ahaa 1959 qabiilka Hutugu waxa uu xukunkii ka tuuray boqortooyadii Tutsiga, xilligaasi oo boqolaal ka mid ah shacabkii Tutsigu ay u qaxeen wadamada deriska ah ee ka mid tahay dalka Uganda. qaar ka mid ah dadkii Tutsiga ee dalkooda dibadda ka joogay ayaa samaystay urur hubeysan oo lagu magacaabi jiray Rwandan Patriotic Front (RPF), kuwaasi oo ku soo duulay Rwanda waxayna gacanta ku dhigeen sanadkii 1990. waxaa dagaalkaasi u socday ilaa 1993 xilligaas oo heshiis afgarada laga gaadhay colaadaasi. habeenimada 6 bishii Afraad 1994 diyaarad sidii madaxweynihii Rwanda ee Juvenal Habyarimana iyo dhigiisii Cyprian Ntaryamira oo ahaa madaxweynihii dalka Burundi ayaa la soo riday diyaaradii ay saarnaayeen. labadaasi madaxweyne ayaa ka soo jeeday qabiilka Hutuga, waxaana sidoo kale weerarkii diyaaraddaasi ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa. qabiilka Hutuga ayaa dhacdadaasi ku eedeeyay inay geysteen xisbiga RPF oo ahaa xisbigii Tutsiga, waxa ayna u dhaqaaqeen abaabulka weerarkii ay ku xasuuqi lahaayeen qabiilka Tutsiga. dowladdii xilligaasi dalka Rwanda waxay maleeshiyadii Hutuga u gudbiyeen liiska magacyada xubnihii mucaaradka ahaa ee qabiilka Tutsiga, sidaasi ayayna maleeshiyada Hutugu ku laayeen iyaga iyo faamilyadoodiiba. waqtigaasi waxa ay dhikaadhada ama aqoonsiga qofka ku qornaa qofka magaciisa iyo qabiilka uu ka soo jeedo, waxa ayna maleeshiyaadka qabiilka Hutugu istaagayeen wadooyinka si dadka ay u kala saaraan. qofkii noqdo qabiilka Tutsiga waxaa lagu gowracayay bangad. sidoo kale waxaa la qafaashay kumanaan ka mid ah dumarkii ka soo jeeday qabiilka Tutsiga, waxaana laga dhigay addoomo loo galmoodo. maleeshiyaadkii qabiilka Hutugu waxa ay samaysteen raadiyo lagu magacaabi jiray RTLM iyo joornaalo ay ku baahiyeen nacayb ka dhana qabiilka Tutsiga, waxaana halhays u ahaa Weed Out the Cockroaches oo loola jeeday laaya Tutsiga. waxaa sidoo kale idaacadda laga baahin jiray magacyada xubnaha la dilo maalin kasta. waxaa sidoo kale xasuuqani ka qayb qaatay wadaadadii kiniisadda iyo haweenkii kiniisadaha ee loo yaqaano naniska, waxaanay nafta dhaafiyeen dadkii Tutsiga ee kiniisadda soo galay si ay ugu badbaadaan. xasuuqani waxa uu socday 100 maalmood. 100kaasi maalmoodna waxaa si arxan darra loo laayay tiro gaadhaysa 800,000 oo qof, kuwaasi oo ka soo jeeday qabiilka Tutsiga, taasi oo u dhigmaysa in 75% la laayay dadka Tutsiga. sidoo kale maleeshiyaadka Hutugu waxa ay dileen shakhsiyaadkii ilbaxnimada lahaa ee ka soo jeeday isla beeshooda Hutuga. 4 bishii lixaad 1994 xisbigii beesha Tutsiga ee RPF oo dhabarka ku haya xukuumaddii markaasi ee dalka Uganda ayaa mar labaad qabsaday dalka, waxaanay gudaha u galeen caasimadda waddankaasi ee Kigali. waqtigaas qiyaas ahaan 2 milyan oo qof oo ka soo jeeda beesha Hutuga oo isugu jira shacabkii caadiga ahaa iyo kuwii gumaadka geystay oo ka cabsi qabay in laga aarsado ayaa u qaxay dalka ay deriska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo oo waqtigaasi la odhan jiray Zaire. qaar kalena waxay u qaxeen wadamada Tanzania iyo Burundi. hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay waqtigaasi xisbigii dalka qabsaday ee RPF inay laayeen dad kumanaan qof ah, waxayna sidoo kale u gudbeen gudaha dalka Kongo si ay u soo qabtaan xubno Hutuga ka mid ah oo gumaadkaasi wax ka geystay. kumanaan kale oo ka mid ah qaxootigii markaasi joogay dalka Kongo ayaa u geeriyooday macaluul iyo xanuunka kalooraha ama shubanka. markii xisbiga RPF uu u gudbay caasimadda Kinshasa ee dalka Kongo, waxaa xukunkii ka tuureen madaxweynihii talada markaasi hayay ee Mobutu Sese Seko, waxa ayna madaxweyne ka dhigeen Laurent Kabila. Laurent Kabila oo xilkaasi loo geeyay sidii uga hortagi lahaa maleeshiyaadka Hutuga ayaa sababtay colaad laga dhaxlay maleeshiyaad tiro badan oo gaadhay ilaa 6 dal, kuwaasi oo u dagaalamayay sidii u maamuli lahaayeen dalkaasi Kongo oo ah mid dhanka macdanta qani ku ah. dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 5 milyan oo qof ayaa u dhintay gumaadkaasi iyo qalalaasihii daba socday oo soo gaadhay sanadkii 2003. ilaa iyo waqtiganna waxaa jira kooxo hubeysan oo ku sugan xadka dalkaasi ee Rwanda. sanadka 2002
oo markaasi laga joogay waqti dheer gumaadkii dalkaasi ka dhacay, hay'adda cadaaladda adduunka ee ICC ayaa furtay galdambiyeed ka dhana xubnihii gumaadkaasi ku lug lahaa, laakiin wax guula lagama gaadhin. Dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sameeyay dhaqdhaqaaq sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa xubnihii gumaadkaasi ka dambeeyay, waxayna xarun uga dhigeen magaalada Arusha ee dalka Tanzania. waxaana xukunno lagu riday dad tiro ahaan gaadhayay 93 qof oo dhammaan ka soo jeeday beesha Hutuga. Dhinaca kale, waxaa gudaha dalka Rwanda laga aasaasay maxkamad lagu magacaabo Gakaka si loo dardargeliyo qorshe cadaaladda lagu horkeenayo xubnihii gumaadkaasi geystay. waxaa jeelasha dalkaasi ku geeriyooday dad tiradooda lagu qiyaasay 10,000 oo qof intaan cadaaladda la horkeenin. 10 sano oo uu socday qorshahani, xukaam tiradoodu gaadhayso ilaa 12,000 oo xaakin ayaa ku kulmi jiray usbuuc waliba si ay xukun uga gaadhaan in ka badan 1,200,000 oo kiis, kuwaasi oo ku kulmi jiray geedaha hoostooda. kelmadda Gakaka ayaa la micno ah wada fadhiisi iyo wada hadal. dalka Rwanda oo sanadkii 1962 xorriyadda ka qaatay gumaystigii Biljamka, waxaa waqtigani talada dalka haya xisbigii RPF oo ahaa kii ay aasaaseen beeshii Tutsigu. Paul Kagame oo noqday hogaamiyaha xisbiga RPF, sidoo kalena ahaa wasiirkii difaaca ee sanadihii 1994 ilaa 2000. Kagame ayaa markaasi noqday madaxweynihii dalkaasi, waxaana doorashadii u dambeysay ee 2017 dib loogu doortay Kagame, taasi oo ka dhigaysa madaxweynaha xukunka haya 20 sano ee u dambeysay. waxaanu dalkaasi noqday dalka ugu nadaafadda badan qaaradda Afrika, waana uu ka soo kabtay masiibadii 94. muuqaalkani oo soo koobayay xasuuqii dalka Rwanda intaasi ayuu ku eg yahay. haddii aad ku cusub tahay channelkeena, fadlan subscribe si aad u hesho muuqaalada aan soo gelin doono. mahadsanid.